dhinaca kalena shir ayaa maanta ka furmaya magaalada Garowe caasimada Puntland shirkaas oo u dhaxeeya xubnaha ama guddoonada baarlamaanka ee dalka iyo waliba maamul goboleedyada maanta Isniin ayaa lagu wadaa in magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal uu ka furmo shirka shanaad ee golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo waliba dowlad goboleedyada shalay waxaa garoonka diyaaradaha Garowe gaaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad iyo gudoomiyaasha baarlamaanada maamulada Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in guud ahaanba shirkaasi laga rabay gudoomiyihii baarlamaanka ee Galmudug shirka golayaasha sharci dejinta ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 cisho ah inkastoo aan la soo bandhigin ajendaha shirkaasi haddana waxaa la filayaa inay ka hadli doonaan wada shaqeynta golayaasha sharci dejinta iyo sidii loo xoojin lahaa dhinacyada golayaasha sharci dejinta ayaa hore uga dhacay magaalada Muqdisho wuxuuna shirkan sanadkiiba mar lagu qabtaa caasimadaha dowlad goboleedyada kii ugu dambeeyay ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wararkii ugu dambeeyay shirkan Kenya ayaa waxay sheegayaan in goor dambe xali ah la helay macluumaad la xiriira in guud ahaanba shirka maanta Garowe ka dhacay in laga reebo gudoomiyihii baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir sababta loogu reebay ayaa waxaa lagu sheegay in tahay madaxda Galmudug ay ku sugan dhuuso mareeb ah sheegay inuusan ku matali karin xubinnimada Galmudug shirka Garowe ka dhacay ee baarlamaanka u dhaxeeya warqad ay soo qoreen xubnaha Galmudug ugu horeeyay madaxweynaha iyo waliba madaxa xukuumadda ayaa la sheegay in loo diray madaxda ugu sareysay maamulka Puntland taasoo markii dambe ayna shalay gelinkii dambe ay aqbaleen lagana reebay liiska shirka ama xubnaha ka qayb galayaan baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa ka taagan jahwareer iyo buuq waxayna u kala qaybsameen laba dhinac ayagoo kala doortay laba gudoomiye waxayna xarumo ka kala dhigteen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo qudhiisa la xiriirna ayaa waxa uu Rasaara u sheegay inuu wada xaqiijin iyo kulamo arintaas kaga hadlayo kadibna uu la hadli doono warbaahinta faahfaahin uu ka bixin doono sababta loogu reebay shirka ka dhacay Garowe hase yeeshee xogaal ayaa waxay Rasaara u sheegeen in sababta shirka loogu reebay ay qayb weyn ka tahay kadib markii madaxweynaha Galmudug uu la hadlay dhigiisa maamulkaasi Puntland ee Dani kuna wargeliyay in shirka ka dhacay Garowe caasimada Puntland marna uusan ku matali karin Cali Gacal Casir